waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee warbaahinta Dhasheeg qodobada warkayaga caawa aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho ku qaabilay kulan soo dhaweyn oo uu la yeeshay isimada ugu waaweyn deegaanada Puntland. ciidamada ammaanka caasimadda Muqdisho ayaa mar kale muujiyay feejignaan iyo howlkarnimo dheeraad ah kadib markii ay soo qabteen rag ka tirsan Al-Shabaab. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si diiran mar kale ugu mahadceliyay shacabkiisa oo dib u doortay wadahadallada u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka oo ka socda Islaamabad. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku qaada dhigi doonaa caawa warkeena hadduu eebbaweyne ogolaado. mar kalese ku soo dhawaada warka caawa warbaahinta Dhasheeg. aan ku bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ku qaabilay kulan soo dhaweyn ah oo uu la yeeshay isimada ka soo jeeda deegaanada Puntland, kuwaas oo ay ka mid yihiin Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin iyo Suldaan Mursal Suldaan Maxamuud Xaaji Cabdullaahi iyo sidoo kale marti sharaf kale oo la socday qaybna ka ah wafdiga. kulanka ayaa si qoto dheer diiradda loogu saaray xaaladda ka jirta deegaanada Puntland, baahiyaha bulshada iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta u dhaxaysa shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo gaaro xasillooni siyaasadeed iyo horumar waara oo dalka oo dhan saameeya. madaxweyne xasan ayaa la sheegay in uu isimada kala hadlay muhiimadda ay leedahay in la sii adkeeyo xiriirka dowladda iyo bulshada si loo yareeyo khilaafka jira loona abuuro jawi isfahan ah iyo iskaashi kaasoo wax weyn ka tari doona hannaanka dowladnimada dalka. dhanka kale xogaha qaar ayaa tilmaamaya in kulanka uu sidoo kale lahaa dhinac siyaasadeed oo xasaasi ah iyadoo ay jireen aragtiyo kala duwan oo ay qaar ka mid a isimadu ka muujiyeen xaaladda siyaasadeed ee deegaanada iyo doorka dowladda federaalka ee Soomaaliya. wararka aan sida rasmiga loo xaqiijinaya sheegaya in qaar ka mid a odayaashu ay horeyba u muujiyeen walaac ku saabsan habka loo maamulo arrimaha deegaanka, taasoo keentay in kulankan uu yeesho dood iyo isfahan dheer oo ku saabsan qaabka deegaanada Puntland ay isimada cabashada uga muujiyeen. si kastaba ha ahaatee kulanka ayaa ugu dambeyn lagu soo gabagabeeyey jawi isfahan iyo iswaraysi aragtiyadeed oo dabcan ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha ka taagan Puntland, iyadoo labada dhinac ay muujiyeen rabitaan ku aadan in lasii ambaqaado wadahadallada iyo iskaashiga rasmiga ah ee deegaanada Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka dhex taagan markan si loo helo xasillooni iyo amni siyaasadeed oo waara oo dalka oo dhan ka hirgala ay ka shaqayn doontaa, ayuu yidhi madaxweynuhu dowladda federaalka ee Soomaaliya. ciidamada ammaanka ee caasimadda Muqdisho ayaa mar kale muujiyey feejignaan iyo howlkarnimo dheeraad ah, howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen gudaha iyo daafaha degmada Daynile, kaas oo dabcan ay ku fashiliyeen isku dayo halis ah oo ay kooxda khawaarijta ku doonaysay inay ku dhibaatayso shacabka islamarkaasna lagu khalkhalgeliyo amniga magaalada. howlgalkan oo dhacay xilli habeen ayaa ku yimid xog amni oo muhiim ah oo ay si wadajira u bixiyeen shacabka caasimadda, taas oo mar kale muujinaysa muhiimadda iskaashiga u dhexeeya bulshada iyo laamaha ammaanka. ciidamada oo hore ula socday raqaaqa cadowga ayaa ku guulaystay inay gacanta ku soo dhigaan mooto si xeeladaysan loogu soo raray hub culus oo isugu jiray hubiyayaal, miinooyin iyo kuwo kale oo walxaha qarxa laga sameeyo, kuwaas oo si qarsoodi ah loogu dhex qariyey jawaano qudaar ah si aan loo dareemin. ujeeddada falkaas ayaa ahayd in hubkaasi si dhuumaalaysi ah lagu soo geliyo gudaha caasimadda si loogu fuliyo weeraro waxyeello u geysta shacabka rayidka ah. si kastaba ha ahaatee feejignaanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xogta ay heleen ayaa meesha ka saartay khatartaas ka hor inta aysan hirgelin. dhagarqabihii waday mootada ayaa isku dayay inuu qarxiyo mootada iyo hubka saaran markii uu dareemay in la qabanayo, balse ciidamada dowladda ayaa si degdega ugu hortagay falkaas iyadoo ay badbaadiyeen nolosha dad badan oo halis geli lahaa haddii uu qaraxaasi halkaa ka dhici lahaa. hubka lagu qabtay iyo mootada lagu soo dhex qariyey ayaa muujinaysa heerka khatarta ee la doonayo in lagu waxyeeleeyo bulshada. hubka la qabtay iyo mootadii lagu soo dhex qariyey ayaa muujinaya heerka khatarta ee la doonayo in lagu waxyeeleeyo bulshada iyo sidaa oo kale xirfadda ciidamadu u adeegsadaan ka hortagga weeraradaasi. saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa si gaara ugu mahadceliyey shacabka Muqdisho doorka muuqda ay ka qaataan bixinta xogta iyo sugidda amniga, iyadoo carabka ku adkeeyey in aan wada shaqayn noocan ah ay tahay furaha guusha oo lagula dagaalami karo kooxaha
waxaana sidoo kale ballanqaadeen inay sii laba jibaari doonaan dagaalada lagula jiro amniga caasimadda iyadoo markaasna ay habeen iyo maalinba u taagan yihiin in ciidamadu ay waajibaadkooda gutaan. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa si diiran ugu mahad celiyey shacabkiisa kadib doorasho si nabad ah ku soo idlaatay taas oo uu ku helay codadka aqlabiyadda ah oo mar kale xaqiijinaysa hoggaanka dalka. doorashadan oo si weyn dabcan isha loogu hayay ayaa muujinaysay kalsoonida shacabka jabuuti mar kalena ay ku qabaan hoggaankiisa iyagoo ay u arkaan mid sii wadi kara xasiloonnida iyo horumarka dalka. toddobaad ka hor ayaa la saadaaliyey in madaxweyne geelle uu mar kale ku soo laaban doono xilka iyadoo warbixinno hore ay tilmaamayeen in taageeradiisa si weyn uga muuqatay goobaha uu booqday iyo kulamadii uu la yeeshay bulshada qiimaha kala duwan. safaradaas iyo kulankaas shacabka ayaa muujinaya jawi rajo oo ugu dambayn isu beddelaya natiijo farxad gelisay taageerayaasha kuwaas oo u arkayay doorashada mid sii xoojinaysa jihada siyaasadeed ee uu dalku aadayo. muddo dheer oo uu xilka hayay madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxa uu noqday hogaamiye si weyn loogu yaqaanay siyaasadda gobolka geeska afrika isagoo door muuqda ka qaatay xasiloonnida gudaha iyo xiriirka dibadda ee jabuuti. inkastoo ay jiraan aragtiyo kala duwan oo ku saabsan muddada dheer ee uu xilka hayay haddana natiijo ahaan doorashada ayaa mar kale muujinaysa inuu qayb weyn oo ka mid a shacabku ay weli taageersan yihiin hoggaankiisa iyo jihada uu dalka u wado. guusha cusub waxa ay muujinaysaa doorka jabuuti ee gobolka iyadoo la filayo hoggaanka geelle inuu sii wado dadaalada la xiriira horumarinta dhaqaalaha amniga iyo xiriirka caalamiga. dhanka kale shacabka ayaa muujinaya in muddadan cusub ay keento isbeddel wax ku ool ah oo sii wanaajinaya noloshooda islamarkaasna xoojinaya midnimada iyo horumarka dalka. wadahadallada u dhexeeya iiraan iyo maraykanka ee ka socda islaamabad waxa ay ka mid yihiin kulamada ugu xasaasisan ee siyaasadda caalamka maanta iyadoo labada dhinacba ay miiska la yimaadeen aragtiyo aad u kala fog iyo shuruudo culus oo si toosa u taabanaya amniga dhaqaalaha iyo saamaynta guud ee gobolka. inkastoo loo arko kala duwanaanshaha weyn haddana waxa ay muuqataa in labada dhinacba aysan doonaynin dagaal dheer taas oo rajo abuuraya in albaab u furmo xal siyaasadeed oo tahriib aan ahayn. iiraan waxay u muuqataa dhinac si weyn ugu baahan cafis. iiraan waxay u muuqataa dhinac si weyn ugu baahan nafis degdeg ah maadaama cunaqabataynta dhaqaale ay muddada dheer saamaynta ku yeelatay dhaqaalaha dalka ay iyada aad u dilootay. waxayna doonaysaa in la fasaxo hantideeda la xanibay in la yareeyo cadaadiska dhaqaale islamarkaasna la aqoonsado doorkeeda istaraatiijiga ah ee marinka istaraatiijiga ee hormus. sidoo kale waxay ku adkaysanaysaa in arrimaha gobolka sida lubnaan lagu daro wadahadallada iyadoo ay u aragto in ay qayb ka yihiin xasiloonnida guud ee gobolka. dhanka kale maraykanku waxa uu doonayaa inuu si degdeg ah loo xadido barnaamijka nukliyeerka iiraan in la yareeyo awooddeeda gantaalada in la xakameeyo saamayn ay ku leedahay dalalka bariga dhexe arrintaas oo kuwa aadka ugu culus oo sida fudud lagu gaari karo heshiis degdega. jawiga wadahadallada ayaa sii kululaaday kadib markii warar ay sheegayeen in markab dagaal oo maraykanka uu u dhaqaaqay dhanka marinka hormus halkaasoo iiraan si degdega uga bixisay digniin adag oo keentay in xaaladdu isu beddesho mid aad u xasaasi ah. inkastoo xiisaddan ay muujinayso heerka halista ah haddana sidoo kale waxaa caddaynaysaa sida ay labada dhinacba ugu taxadarayaan in xaaladdu gasho dagaal toosa maadaama tallaabo kasta oo khaldan oo horseedi karta cawaaqib xumo ballaaran oo dhaqaale iyo amni leh gaar ahaan marka loo eego muhiimadda marinkaas uu u leeyahay ganacsiga shidaalka ee caalamka. ugu dambayntii waxaa muuqatay in faa'iidada degdega ee u janjeerta dhanka iiraan haddii heshiis la gaaro maadaama ay heli karto nafis dhaqaale iyo furitaan hanti xaniban halka maraykanka uu raadinayo natiijooyin wakhti dheer qaata oo la xiriira amniga iyo xasiloonnida gobolka. guud ahaan waa naga intaa warka habeenimo warbaahinta Dhisheg.